haddaad wadaad kitaaba soo akhrisay tahay waxaad u baahantahay waane iyo wacdi inaad dhegaysato. haddaad oday tahay waxaad u baahantahay waane iyo wacdi inaad dhegaysato. haddaad dhallinyaro tahay waxaad u baahantahay waane iyo wacdi inaad dhegaysato. waayo qofka insaanka la yidhaahdo ayaa qummanida tooska ahi ku dhib tahay oo aan ka maarmin in wax la xasuusiyo. walidaalika buu nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa masaajidku ku wacdiyi jiray oo suuqu ku wacdiyi jiray oo xabaalaha dushoodu ku wacdiyi jiray oo meel kasta wacdigu uu ka socday. suuquu soo maray xadiiskii saxiixa ku yaallay. dabeetana suuqii wax lagu kala iibsanayay markuu marayay buu arkay orgi yaroo bakhtiyey. intuu nebigu dhegta qabtay, waa orgi yaroo dhukan dhaga yaryar, intuu qabtay buu wuxuu yidhi kan yaa dirham siistay. waxay idhahdeen ilaahay rasuulkiisii oo cidna kan dirham siisan weyso. war yaa dirham siistay buu nebigu ku celinayaa. markii cidi juuqi weyday ayuu wuxuu yidhi haddaba yaa bilaash ku qaadanaya, yaa kan bilaash ku qaadanaya. waxay ugu jawaabeen ilaahay rasuulkiisiiyow hadduu noolaan lahaa buu muciib yahay, ayuu mid ceebayay. innahu asak bay idhaahdeen, waa dhukan yahy. orgiiba buu marka horeba ahaa xoolaa dhadiggaa la jecel yahay, kani waa marka labaadee ceeb buu leeyahy. oo xataa orginimo loola hadhaya maaha, oo qiimihii in xoolaa lagu darsado wax ka dhala maaha. saa daraaddeed ba waxay idhahdeen marka horeba asak iyo haanuu qiimo lahayn ee kii oo bakhtiyey maxaa lagu falayaa. dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay adduunka aa ku mashquulka tihiin oo dhan ilaahay agtiisa kaa waa kaga qiimo liitaa. addunya kullaha daaraan dhistay iyo xoolaha shaqaystay waxaa wadaan oo dhan haddii laysku daro adduunkaynu mashquulku dhahay orgigaa bakhtiyey waa ka liitaa buu nebigu yidhi. yacni wuxuu nebigu rabaa inuu dareensiiyo aakhiradooda waxay geystaan inuu yahay waxa muhimka ah. xabaal iyadoo nin saxaabiya la aasayo xabaashii la qoday oo aan weli luxudkii la jeexin buu wuxuu ku yidhi uu dhulka ku xarariiqay nebigu. xadiidka imaamu axmed baa soo saaraya. dabeetana wuxuu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam istaciidu billahi min cadaabi alqabr, istaciidu billahi min cadaabi alqabr, istaciidu billahi min cadaabi alqabr. waar ilaahay ka magan gala cadaabulqabriga buu nebigu yidhi. ilaahay ka magan gala, ilaahay ka magan gala, ilaahay ka magan gala. waxay taasi tilmaamaysaa goob kasta joogo inaad wacdi u baahantay. xabaalaha in laysku wacdiyo, oo suuqa laysku wacdiyo, shaqada laysku wacdiyo, oo masaajidka laysku wacdiyo. waayo nafta bini aadamkaa tadabdub badan, bini aadamkaa weecweecasho badan, bini aadamkaa qumanidu inuu one line haystaa ku adagtay. one line inuu taagnaadaa bini aadamkay ku adagtay. sidaa awgeed ayuha alaxiba wacdi kama maaranno. wakhtigoo kooban daraaddeed qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa in ayaamaha dadka lagu wacdiyo iyo taariikhda, iyo qur-aanku taariikh aad u ballaadhan buu ka warramayaa. walaqad calimtum aladiina اctadow minkum fi الsabt faqulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin fajacalnaaha nakaalan lima bayna yadayha wama khalfaha wamawcidatan lilmuttaqiin baa ilaha yidhi. qisaskii dadkii hore inta rabbi ka warramay duul la halaagay oo daayaro laga dhigay ayaa waxaa rabbi leeyahy waxaanu ka yeelay nakaalan lima bayna yadayha wamaa khalfaha, ay cibra miday kuwaana qaataan baanu ka dhignay baa rabbi leeyahy. kuwii joogay iyo gadaasheed dambe kuwa yimaadaaba waxay ku cibro qaataan, iyo wamawcidatan lilmuttaqiin waxay ku waantoobaan inta alla ka cabsanaysa. ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay wakullan naqusu calayka min anbaa'i الrusuli ma nuhabitu bihi fu'aadak wajaa'aka fi hadihi اlxaq wamawcidatun wadikra lilmu'miniin. ambiyada qisaskeeda iyo rusushaa kaaga warramayaa baa ilaahay leeyahy si qalbigaaga loo dejiyo. diinta tanna qur-aankanna xaq baa lagu soo dejiyey, iyo mawcida iyo wadikra wax waane u ah iyo xusid. ilaahay wuxuu qur-aanka ku sifaynaya hada bayaanu linnaasi wahudan wamawcidatun lilmuttaqiin. idan ayuha alaxiba waanu kama wada maaranno, dhammaanteen in layna waaniyaa baynu u baahannay.
قرآنك إلهي وحين وغورما يسوع أنبياء وانينيا قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين بإلهك نبي الله نوح ونبيه يا إلهي لي إني أعظك أن تكون من الجاهلين وحنكا وانينيا وحمقرت ضينة كبير طبع إلهي كويري وحا قرآنك إلهي كورميا دادك مؤمنين تا مرا يقفكو دعين حديثة الإفكية وحي لمدا يعيذكم الله أن تعودوا لمثله با إلهي ور إلهي وحيد كوانينيا إنا وحاسوك لدبقوا النغطان لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين وحا قرآنك إلهي نوغو تلماميا كفارتين لوعديه وهي هو أصحاب القلوب بيين وبشر وعديه تتكبر بوها استعامد إلا وعديه ورا ما بروفيسور هذا أما مسكين سوق شوقها هذا إنسان مضافه كثرة المعلومات ما بدا شيء إنسان مضى ثقافة بدلنا الحنبار سنتي معناه دوما هينت بنا آدم نمضى كبحضي وما هي صافوفين وهي سموفين تتكبر بوها استهدو PhD سوقاتي يدوها سوقاتو أفوف مو أمودين بنا آدم نمضى يساقو نافي يميلها اللي سكو عدي وحاسا إلا يرتهي ما هصح سادرادت با إلهي وحلي حتى قالك قل إنما أعيدكم بواحدة قالوا حد كتير هذا با إلهي يدي هل مدى إيدك اللي تكو واريني إلا قال با هيديني أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد إذن كمد با اللي تكو واريني وام حي قال كمد كالكو واريني مد أمال لبا إسو تاقا صادونتان إنا فكرتان وكفكرتان رسالة يا الرسول شيئا بيدنا الله صادري ما بصاحبكم من جنة دي النبي ينوالنا ميسو يجي نبي ينوالنا منك والنا وانا ما حكمتكو هالي وانا ما وحسح الشيقين وانا الركيس قسيه نبينا وأعقل الناس واحد هذا نقفك النبي نماذا شيكتا الله ما ميدون بالنقضة إما أكذب الكاذبين نويه إيينو يهي أصدق الصادقين هدو النبي يهي دي وكرو شيغا كي ورو شيغا بدنا هدو بين يهينا وامحي كو بين شيغا كي بين بدنا بو نقونيا لبدا قف adiga meeska ka qaldamaya qofka dadka u beenta badan leh iyo qofka dadka u runta badan leh meeska ka qaldamaya how many immisaminis ama sababood ba jiro bini'aadamka loo taskareeyo inuu run ku sheegayo inuu been sheegayo inagu dadka caadiga ah baynu kala naqaanaa ninka beenaala ah iyo maxay ninka run sheega markaad muddo la dhaqanto midnaba ka qarsoomaya markaa nabi kaama qarsoomayo ilaahay quraanka wuxuu inoogu tilmaamayaa gaalka u baahan in la waaniyo ilmaha caruurta u baahan baa ilaahay leeyahay وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إلهي قرآنك وحكاك ورمي أن الله يدعى لقمان الحكيم وحكمة ربي السيئي حكمة ديسي وحلين وقصوا النقليين نقول الله ينو شاقي انت مبكم إذا حكمة ديسي نقن كي وكل نقم المهيسة أي حكمة ربي نقينو سوقوري لقمان المهيسة وانين يبالي يدعو كله ويليرها يجيو يا بني وتصغير ويليروا لا تشرك بالله إلهي هو شريك يالين إلهي وحق الله مانين وايو إن الشرك لظلم عظيم شرك هو ظلم وين إذن قال بالوانية وعرور بالوانية ودمر بالوانية واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن بإلهي كبدي من كذا كم دحتاجتا وروانية بإلهي سبحانه وتعالى قال دايا منافق بالوانية أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا بإلهي منافقين إلهي كورمي يا ربي وحولي نفاق وذاك جيسو واني وواحد كنت هذا ورحال ديرو لفهو دا قاعدة مجرم كان لوانية جانجا يا مجرم كان هشورن وكان هو جانجا محوان محمري وروا بني آدم مهما فعل وفعل بني آدم لماذا كما بحين إنسان وعد كما مارمو
sida daraaddeed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa waid qaalat ummatun minhum lima taciduuna qawman ilaahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaban shadiida qaluu macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun qola asxaabu sabtigii markay 3 qaybood u qaybsameen qaar dembigay ku dhaceen qaarna way waaninayeen qaarna way iskaga aamuseen kuwii aan waxbana waanin dembigana ku dhicin baa kuwii kale la hadlay waxay dhaheen lima taciduuna qawman ilaahu muhliku waar duul alla halaagaya maxaa ka waaninaysaan dabeetana waxay dhahdeen waxaanu u waaninaynaa 2 sababoodba annagu inaannu badbaadno daraaddeed oo aan aakhira noloo qabsanin dadkan wax ma u sheegteen kuwa dhafarrada xirta iyo kuwa khamrada cabba iyo kuwa suuqa ku jira xilkayna saaran waa inaynu wax u sheegno isagoo ama ha aqbalo ama ha diida isagay u taallaa laakiin inaga xilkayna saaran waa maxay waa inaynu waaninno waanadaynu waaninayno innaguna waa ku badbaadaynaa walacallahum yattaquun iyana la arkee inay alla ka cabsadaan imisaad aragtay culammadan tabliiqa ah oo intay boob galeen dad ka soo kaxeeyey imisaa aragteen mid khamrigiisii wata soo qabtay yani waa bashar mahmaa facal wa facal waa bashar basharna waana kama maarmo ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu warramayaa waanadu inay ka mid tahay asaaliibta diinta loo faafiyo idcuu ilaa sabiili rabbik bilxikma waalmawcidati alxasana wajaadilhum bilatii hiya axsan ina rabbaka huwa aclamu biman dalla can sabiilih wa huwa aclamu bilmuhtadiin dadka ilaahay ugu yeedh baa la yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam mawcida xasanana dadkaad ilaahay ugu yeedhayso xikmad kula hadal waa macquulaad shay caqliga gelaya waxaad kaloo kula hadashaa baa la yidhi waano wanaagsanna u sheeg hadday dood noqotona doodaan xagxagasho lahayn dood fiican kula dood baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ilaahay baa og baa markaa laynagu yidhi biman dalla can sabiilih wahuwa aclamu biman ihtada dadka inta hanuunaysa iyo inta lumaysa ilaahay baa og adigu shaqo kuma lihid adiga waxa ku saaran baa nebiga la leeyahy calayhi salaatu wasalaam dadka inaad u sheegto qur-aanku wuxuu inoo sheegay qaar ambiya wacdido wacdigii diiday oo leh sawaa'un calaynaa wacadta am lam takun min alwaacidiin waa iskaga kaaya mid inaadna wacdida iyo inaadna wacdin laakiin innaga waxaa layna yidhi in allaha yaamuru bilcadli waalixsaani waitaa'i di lqurba wayanhaa can alfaxshaa'i waalmunkari waalbagyi maxaa alle ku gebagabeeyey yacidukum lacallakum tadakkaruun ilaahay wuxuu idin farayaa baa la yidhi cadaalad iyo samo iyo qaraabo xidhiidhin iyo xumaho a ka dheeraataan iyo munkarka waxa sharcigu diido a iskaga tagtaan iyo dulmiga oo aad joojisaan war rabbi waa idin waaninayaa baa ilaahay leeyahy yacidukum lacallakum tadakkaruun waa khudbad jimco kasta inta badan aayadda aynu maqalno ilaahay wuxuu leeyahy rab baa idin waaninaya waxaana laydin waaninayaa lacallakum tadakkaruun ayuha alaxibba warkaygu wuxuu ku kooban yahay cid wal oo dunidan joogtaaba waanay u baahantay waxaad u baahantay inaad yeelato wakhti lagu waaniyo saxaabadii nebiga haweenkii baa nebiga u yimi waxay dhaha ilaahay rasuulkiisiiyow raggii baa nooga kaa xoog batay mar kasta rag baa kula jooga ee waxaad noo yeeshaa bay dhaheen wakhti annagana aadna waaniso dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sameeyey maalin gaaroo iyagana waaniyo maalin gaaruu la kulmay oo iyagana waaniyey waa xadiidkii uu tilmaamayey tii 3 ilmood ay ka dhintaan ee sabirtay in aakhiro xijaab naareed alla uga dhigayo qof dumara istaagto waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow tii labana ku dar wahnayni markay ku celcelisay ayuu nebiguna dhow goor ugu celiyey wahnayni nebiguna yidhi calayhi salaatu wasalaam sidaa ogeed waana kama maarantid waana marnaba kama maarantid